كنا وحوين فيديوغين اللبات فيديوغين وحين كو إيجينا إن أي مسمينا صدى application كيني يرى وحين مسمينا نمحي صدى معناه ذو حوين إن .exe laga dhigo oo ashashada halkan inoo timaado sida OBS Studio-ga ama Google Chrome-ka oo aynu install gareyn karno uninstall ku sameyn karno. So that's what we're gonna do. First waxaynu baahanyahay edit gareyno database-keena. Hadda database waa green ma edit gareysay u haysta ay ka dhigan tahay. First thing aynu u baahanahay in aynu sameyno waxa weeyaan in application horta save gareyno. Application-ka aynu save gareysana. Okay. Application-ka markaan save gareyno waxaynu sameynaynaa inaynu wax ka bedelno debugging configuration solution. Debugging bay inoo ahayd waxaan ka dhiganaa maxay release. markaan release ka dhigno iskala check waxa dhici doona. Waan start gareynaa motion gareynaa project-kii waxa doonaysaa continue debugging yani iyadoo xitaa la bedelay debugging ha iska sii wato. ka su'aalo kaliya taa inuu ku jirtay waxaynu ku darsanaynaa samsam then for example samsam عندنا تليفون كده intaasoo 8 samsam data deduction. Okay. System كان يسوي debugging release ku jira macnaheedu inoo shaqeynaya. inta markaynu sameeyno waxaynu u baahanahay in extension installation ay soo disay. waxa tagaysaa extensions waxa tagaysaa manage extension waxa halka ku qoraysaa installer installer بلا internet بانا هاي اي ما شقينيا marka so internet baan doonaya waan ku soo shubanaya marka kadib aan tusaya internet baan doontay waan ku soo shubtay internet extension keeni simple extension keeni waxa la rabaa installer app sidoo eegayeen hadaynu eegi doona waxaan u baahanay marka aad ku soo shubato in VB-ga aad ku samayso restart haddii kale ma shaqeynayo. marka restart macnaheedu waxa weeyaan inaad iska xidho dabadna aad mar labaad soo kiciso. marka waan xidhay mar labaad baan soo kicinaya. wuu ii shaqeynayaa hadda installation-kan uu igu jiraa. waxaan tagayaa solution explorer kan tagayaa kadib waxaan dooranayaa name-ka solution-ka application-ka aan haysto right click baan siinayaa new page baan arnayaa. markuu ii soo kaco marka intuu ii soo kacayo waan iska yara sugayaa. okay hadda uu ii soo kacay solution explorer baan hadda tagay. halkan ku sheegay marka waxaad tagaysaa maxay solution magacaaga uu ku qoray project waxaana saadayna right click marka tiraado waxaana saad extension-kii aynu ku soo shubanay aynu u baahnay as project inaynu ugu soo daro. extension-kii marka anagu aan ku soo shubtay sida project weeyaan installation marka tiraado waxa ku soo baxaya Microsoft Visual Studio Installer Project 2022 saanu eeyahay dad waxaan samxay next badan mesela sadabkeena marka magacaada bixinayna waxay misaga bixinaba as semester 8
new generation sada wuxuu ii geliyay folderkaas ay ku qorantay contacts semester 8 contacts ay ku qoran tahay waa halkuu ku jiro systemka marka waxaynu helaynaa page saan oo kale u eeg database-ka ii update gare page baynu helaynaa saan oo kale u eeg page-kan marka waa halkan installation-ka aynu ka sameynayna marka waxaynu oranaysaa right click wuxuu ka kooban yahay file-kani saddex wuxuu ka kooban application folder user desktop user background mini so ka koowaad baynu dooranayna waxaa tirahdaa add original output waxaan dooranaa primary output maadaama oo MX Windows .NET framework isticmaalno oo kii hore ah halkan waxaan ku build gareynayaa project inuu ku build gareynayaa exe ayuu ka dhigaa projectaaga configurationkiisuna waa active waxaa la markaa next waxaan u baahanay markaa inaan kusoo darsano picture markaan doonayno kusoo darsano waxaa la file add file waxaan tegaynaa markaas xaggii aad picture ka dhigtay so picture-ka waa inuu ISO yahay picture-ku ISO sida kan oo kale extension-kiisu yahay .ico halka kasoo qaadanayso iconkuna waxa weeyaan Beachon amba Google-ka ay kasoo qaadanayso laakiin waa inuu ISO yahay ayuu bashartiya okay hadda waynu kusoo darsanay waxaynu kusoo darsanay isada halkan waxa kale inuu jiro assembly so assembly maxay ahayd inka u baahan yahay isticmaalo shortcut bin ka samaysanaa shortcut-keena for example waxaynu bixinaynaa semester 8 sada shortcut-keena waxaa semester 8 sada waxaynu kusoo darsanaa maxay waxaynu kusoo darsanaynaa icon marka waxaa browse dabeedna waxaa badan dooraysaa browse file application folder-keeni waxaa ku dhex jiray content ISO isla kii hore un marka ay bin dooranaa okay wuu igu soo diray right click baa siinaysaa markaa shortcut-ka markaa right click siiso cut badanaysaa waxaad ku save garay waxaad ku paste garaynaysaa dooranaysaa xagee users desktop ayaa loo isticmaali doonaa in the future bay ka dhigan tahay markaa waxaad oranaysaa this dib baad ugu noqonaysaa application folder-kaagii markaa waxaad click garaynaysaa primary-gaagii magacii aad usoo bixisay kan hore ayuunbaad kan aad u bixin doontaa for example kan waxaynu usoo bixinay semester 7 korliskana back shortcut-keena magaciisa aynu ka dhigno isticnaa magacii aynu kan hore ka dhignay kana ka dhigno sidii kii hore oo kale fn soo gashana hadda picture-kana wuxuu noo dhex yaalaa marka hore computer-keena wuxuu noo dhex yaalaa failka application folder-ka dabna click waanaya waan sidii kii hore baan kat garaynaya waxaan geenaya xagee users program dabna waxaan dhahayaa best intaa markaan dhaho application-keena uu noo yahay release waxaan dooranayaa ama waxaan tegayaa to property baan tegayaa so control Q property windows solution explorer kaya waa inaa furto oo xilay I think so
solution explorer كنا ينفو solution explorer كنا هداد أركتها هدا وحكو جرى لبا project وكي هورين ديسناي project labaadna waxa weeyaan sadabkan sameeyno bixinay S8 NG sadab oo semester 8 new generation sadab so halkan marka waxaan u baahanahay cidda systemka sameysay magaceeda amba company-ga sameeyay ku qorno so in this case waxaan ku qorayaa magacayga yaasar manufacturer company-ga sameeyay haduu markaan u system u yahay company-ga sameeyay waxaan ku qori doontaa maxay company-ga magaciisa okay magacii nawayno u sameeyay systemkeena markaa waxaa ku dhex jira maxay independencies-ka business framework waxaa ku dhex jira primary contact and easily inta soo koobay waxaa sameynaysaa right click inaad tiraahdo dabeedna aad tiraahdo maxay good marka build tiraahdo markaad tiraahdo explorerka release-ka waxa inoogu jira maxay waxa inoogu jira arday sida keenay samaysan sadabku marka laba ka kooban yahay midi waa sadab midina wata sadab maxay haytoy application .exe ah iyo mid dll ah markaad ku dhufato labadan sadab labaduba waxa weeyaan waa isku mid kolba ka doonto ee isticmaal doontaa ka hore size-kiisu waa 562 KB kan dambana waxa weeyaan 537 KB sababka hoose ayaa fudud aan iska isticmaalayaa sadabkiisaan igu soo baxaya welcome to semester 8 new generation sadab reset kadib waxaan leeyahay maxay next يا استعمال دون system everyone أي استعمال دون حنا next هذا حنا next يقولي do you want to allow this app from unknown publisher to make change to your interface أو مركا مادام أينا هي توي أينا كوصادر publisher كا أينا صوصي لينكي يوحاس وحلو unknown so yes صدق مركا وينو سمي waxaan tegaynaa desktop-ka waxaanu eegaynaa inay sadabki inaynu haysan okay kani waa sawir halkan iga geli sadabki waa kan aynu click niraahna systemka waa kaas uu inoo soo kacaya aynu magac gelino imika hooda علي عمر هذا at newgenerationuniversity.com intaasoo sidan bay wada saarooda lambarkeyga okay data successfully installed okay systemka markaas saas buu ku shaqeynayaa waad yareysan kartaa waad iska laabi kartaa waxaa kale ku samayn kartaa waad saqeyn kartaa systemkeena hal shay waynu ka ilownay markaa waxaynu ka ilownay in aynu markii aynu soo dhisaynay aynu u samayno windows icon male iminkaan xaasta windows icon aan lahayn I think لكن that's enough windows icon app project أنا مصدر دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوقات ونعكسن رمضان ونعكسن مع السلامة. I'm gonna stop recording.